السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتنا السلام عليكم سودين على كجوكتان وانا ورسم عبد الله سيعو جنا كداوني سنوا هي سيعو برودكشن صد هذا مرة هذه مرسدحات أدي أنا ما سنتهين إن فضل هذه تابوقشة كيقولوا وجنا كأصوب بوقته وحنصيحش ملك على عصنيها سبسكرايب لايك شير كومنت أنت بنا لا كسيسو هذه أظهر من وجهتنا أدي أنا ما سنتهي صد هذا مرة هذه مرسدحات ويلكم باك أصحابتنا سيدي عوانك أكسو أركتين موقال كينا مانتا أوكي موقال كينا مانتا حكساب سين ياهي وحاس كساب سين ياهي أس كساب سين ياهي رنتي مالناها سوشيال ميديا وحا نحو ريجيسي أرنتي صاحبكي كمال iyo walaashay Hani iyo sidoo kale saaxiibkay Cabdisalaan runtii arintaas ayaanta social media dhex wareegaysay laakiin alxamdulillah ugu dambeyn arintii oo way soo gabagabowday waxa loo ordayay oo qof walba uu soo hadlayay dadna ay Kamaal u soo taageerayeen yani dadna ay u soo taageerayeen Cabdisalaan waxay ahayd xaqiiqada in la ogaado kaliya hadda xaqiiqadii waa la ogaaday okay haddii aan marka baada youtuberska maxaa nala gudboon waxaa nala gudboon arrintan inaan meesha uga harno xaqiiqadii way soo baxday walaalkay Kamaal khayr Allah siiyo maxaan ku yiraahdaa arrintii uu soo gabagabeeyay muuqaalka horeen waa kaga soo hadlay in Kamaal arrintii uu soo gabagabeeyay waa soo dhaartay xaqiiqada ka soo hadlay intaas wixii ka dambeeyay qofkii Kamaal ku dhagan ama Kamaal wax ka soo sheega waa qof si gooni uga arsanayay Kamaal mana ka aaminsan doona arrintaas okay Kamaal waa nin rag aan xaq iska dhigno sirraganimo ay ku dhahanto u soo hadlay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay saaxiib gobgob dhashaa tahay xagga maxaan ku yiraahdaa xagga inoo joogtaa waxaan ka hadlaa macnaha dadka hadda ku dhagan macnaha Kamaal waa nin rag wuu yaqaanaa qaabka la isaga dhiciyo dadka soo wajaha macnaha wallahi xaqiiqatan runta idin sheegaya arrintii way dhamaatay Kamaal wuu dhaartay Soomaha wuu dhaartay anaga dhan waa aaminay ileen nin dhaartay ninkii aamin waaya ka xun Soomaa nin dhaartay ninkii aamin waaya ka sii daran Kamaal wuu dhaartay wixii intaas kadib macna xaqiiqadii way soo baxday Soomaa xaqiiqada soo baxday wax kale loo baahan yahay maxay tahay marka wax kale oo loo baahan yahay waa qalad wax kale ee loo daba joogo Kamaal iyo Hani waa qalad marka Kamaal asaga nin rag ah asaga iska dhici kara waa nin cadkiisa dhacsan kara marka inta wixii ka dambeeyo qofkii macnaha waa arkay dad hadda oo Jamaal ka soo jafay waa arkay macnaha Kamaal kasoo jafay waa arkay macnaha jafatii iyo kaadi ay isku qalday dad Kamaal hadda kasoo jafay waa arkay inta waxa arkay youtuber qaar oo ku soo qoraya degdeg fiiri degdeg Kamaal Cabdul hooyiso afka furatay fiiri codadkii hore dib u soo celinay wallahi waa hadda saacad iyo wax la mid ah ay yaalin macnaha muuqaaladaas janaalada qaarana soo galiyay war arintan way isku dhamaatay way soo afjarantay intaan kadib maxaa idin daba dhigay marka ma rabo in maxaa ku yiraahdaa muuqaalku sii dheeraado kaliya hal arin ayaa rabaa inaan ka hadlo macnaha tan Kamaal waa sida uu sheegay Kamaal waa nin rag oo isdifaaci kara waxa waaye afkiisa waa kulli waa ogtiin Kamaal nin oo maxaa ku yiraahdaa biyo ay ka dhacayaan maaha afkiisa Kamaal waa nin isdifaaci kara laakiin gabadhan walaasheena horta maqaldamo waa Ilaahay qof walba qalad uu ka dhaca bin aadan qalad uu ka dhaca maqaldamo waa Ilaahay subhanahu wa ta'ala gabadhan walaasheen ah waa ognahay way qaldantay qalad ay ku dhacday Soomaa okay maadaama ay qaldantay qalad ay ku dhacday runtiina ay soo baxday meesha looga haro warwaraalayaal meesha looga haro inta kadib gabadhan macnaha wax ma aragtiin ilaa final la gaarsiisin oo mid kale u fiirsada ugu dambeyn والله وبالله وطلعها وحجارسي دونتين جودان
heer ilaa maxaa ku yidhahdaa isbitaal ay ka gasho micnaa heer nafteeda wax yeelayso isbitaal ay gasho markaasaa waxaa soo dhihi doontiin ma u maleehayninoo saa inay naqanayso ma u maleehayn please asxaabay wixii loo ordaayo waxay ahayd xaqiiqadii inay banaan ka timaado xaqiiqadiina way timid waa idin baryaa qaab kale oo fiis loo raadiyaa jiro micnaa qaab kale oo fiis loo raadiyaa jiro gabadhan walaasheen ah ha laga haro please maqaldamo waa ilaahay maqaldamo waa allah bini aadamka oo dhan waa qaldamaa gafna oo ka dhacaa wixii loo wada ordaayo waxay ahayd xaqiiqadii inay soo baxdo hadda xaqiiqadii way soo baxday marka maadaama xaqiiqadii ay soo baxday intaas kadib maxaa laga rabaa mar gabadha miskiinta xaqiiqadii way soo baxday maxaa laga rabaa loo sii daba dhiganaa fiiri dadka qaaraa fiiri youtubeleyda qaaraa waxay ku leeyihiin fiiri saacad 2 saac 3 saac ka hor miya camal ay yaalin micnaa muuqaaladaas waxay ku leeyihiin gabadha madaxa looga jiraa way xanuunsan tahay welina way kusii dhegan yihiin welina waxay kasii sheegayaan war way xanuunsan tahaaba dhahday u duceey walaasheen allaha caafimaad taama allaha siiyo qalbiga allaha u qaboojiyo bis jas intaas ku ekay ka har haddii fugiis aa rabto waxyaabo kale ck iyo waxaa soo heshiiyey iyo ibkaar way heshiiyeen kaa soo qaado kuwiin qaawan oo sheekh mustafa usoo gaftay kuwaas ka soo dhigo soo qaata war waxyaabo kale oo fiis laga dhigi karaa jiro micnaa please and please gabadhan walaasheen wallahi soomaaliyey xaaladda haddii ay ku jirto xaalad ka xunaa geyi doontiin booska ay fii dembiga qaladka ee gashay qalad ka weyn idinka hadda ku jiro marka youtuberska qaar cimraan uu soo sheegay oo ka soo hadlay cimraan oo ka soo fiiri cimraan laakaha media soo ma ahan maxaan ku yidhahdaa qofkii arrintan xaqiiqadeeda banaanka keenay qofka arrintan social media keena soo maaha xaqiiqadii way soo baxday waa saga haray asagiyaa ka soo hadlay xalow ka soo hadlay muuqaaluu soo geliyey saacaduu yaalaa laakaha media bro waa fiirsi kartiin wuu ka soo hadlay arrintan ha laga haro cimraan wuxuu dhahay annaga arrinta xaqiiqada rabna inaan banaanka keenno waana keennay khalaas intaan kadib wixii loo sii daba joogo waa qalad marka please and please youtuberska waxaan ka codsanayaa in gabadhaas xaaladda hadda ay ku jirto xaalad ka xun in aan la gelin wallaahi xaaladda hadda ay ku jirto xaalad ka xun in aan la gelin saa haddaa kusii wadiin micnaha natiijo xunaa ka dhala doonto wallahi sida hadda aa ku wadiin hadda waxaa arkaya shiino culey hadda soo qalab qaataba haddau soo qalab qaatay dhac hadda muhurda ka soo kaca miya ma ogi kaala sheeg hadda soo qalab qaataba shiino culey asxaabey waxaan iska codsanayaa muuqaalkan in sheerta iyo laagta lagu badiyo si youtuberska ay u gaaraan waxaan rabaa in youtubeleyda meel kasta ay ku nool yihiin in muuqaalkan uu gaaro youtuberska qaar ee ka soo hadlaaya weli arrinta hani ee kusoo dhegan hani war nima yahow gabadhan xaalad xun ha gaarsiinina wallaahi waxaa ka baqaa beri inaad ka shalaysiin oo in arrintan ay dhacayso ma moodeynin inaad dhahdiin please and please hadda xaqiiqadii waa soo baxday waa la ogaaday isaga hara intaan kadib waxaa usii daba socotiin waa qalad wallahi billahi tallahi waa qalad intaan kadib waxaa u daba socotiin waa qalad ha laga haro wargarkii jilbahan idinka haysaa arrintan ka hara gabadhan ka hara iska dhaafa wallaahi oo bilaahi oo tallaahi waxaa dhici doonta maalin haddaad sii daba joogtaan waxaa dhici doonta maalin xaaladda hadda ay ku jirto xaalad ka xun inay tagto soomaali dhan inay nacdo hadda micnaha maxamed agsheega wareysanayay waxay tiri wallahi social media dhan waa nacay way oynaysay waxaa laga yaabaa marka xaaladda hadday ku jirto xaalad ka xun inay gasho xaalad ka xun inaad gaarsiiseen marka bliis intay taas dhici laheyd ha laga haro ha laga gaabsado keliya xaqiiqadii yaa la rabay banaankee timid isaga hara marka xaqiiqadii ninkii maxaa ku yidhahdaa our brother maxaa ku yidhahdaa cimraan laakaha media ayaa barnaamijkan keenay xaqiiqadii waa la ogaaday asigii uu isaga haray adigiina ka har waxyaabo kale fuyis ka dhigo waxyaabo badan oo hadda oo laga hadli karaa social media dhex ordaayo kuwaas soo qaado
kuwaas ka soo hadal please and please gabadhaas walaasheena ha laga foqo ha la isaga haro waa iga codsi okay fadlan haddii ay tahay booqashada kugu horeysay oo janalka soo booqato waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa subscribe like share iyo comment intaba inaad maxaa ku yiraahdaa nagu caawiso waayo waxay noo tahay dhiirigelin ayay noo tahay muuqaalka halkaas ayaan kusoo maxaa ku yiraahdaa gabagabeynayaa muuqaalkan muuqaalka xigo intaa dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa salaamku salaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuhu peace and love